galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha agost ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somaly.com saacaduna haatan afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey bada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan saameynta sare u kaca sarifka lacagta birta ee etoobiya magaaladan boorama horta waxa wax lagu kaleysada waa birta waa lacagta birta lacagta jigjiga laga isticmaalo lafaciisa laga isticmaalo aw barre laga isticmaalo maalkana laga isticmaalo marka annaga waxa lagu kadeeday dadkii reer baadiyihii ma garanayaan lacagtii kaashkiina way yaraatay marka kadeed bay lagu haysaa birta dhinacna way ka fiicantoo dee ninkii kula fahmayaay wuu qaadanayaa waad ugu shubi falcelinta dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo nolosha dadka gobolka awdal waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda britain oo wada baaritaano ku aadan sababaha keenay in dalkaasi ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah wiil afrikaan ah waalidiintiis ay ka soo jeedeen dalka ruwanda uu dilay 3 gabdhood uu toori ku dilay waxaa markiiba suuqa la geliyey wuxuu ahaa qaxooti muslim ah kadibna waxaa la bartilmaameedsay goobaha ay dadka muslimiinta ay runtii sida masaajidoo kale iyo meelaha dadka laga tira badan yahay waxaa kale aad dhegeysan doontaan maamulka madaxweyne biden oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku saabsan maareynta magangelyo doonka iska soo dhiibaya xadka kanada xubinta dooda gaaban weydii dhakhtarka iyo qodobo kalaase yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo reyn doonaa warkii dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ayaa wadahadallo ku leh caasimadda qatar ee dooxa khamiista maanta iyaga oo ujeedkooduna uu yahay heshiis xabad joojineed oo khaza si markaas ay isku dayaan in laga fogaado dagaal ballaaran oo ka dhaca gobolka bariga dhexe wadaxaajooda wadayaasha ka socda maraykanka masar iyo qatar ayaa waxaa lagu waday inay la kulmaan wafdi ka socda israa'il xamaas ayaa arbacadii shalayto sheegtay inaysan ka qaybgeli doonin wadahadallada laakiin wakiilo ayaa laga yaabaa in ay mar dambeeto la kulmaan dhexdhexaadayaasha sida ay ku warantay reuters marka laga soo tago dagaalka ka socda khaza iyo daanta galbeed israa'iil iyo xisbullah ayaa waxaa duqeyna isku weydaarsanayaan xuduudda lubnaan iyadoo la sheegayo in welina la haystayaal gaaraya 100 qof maraakiibta ganacsiga ayaa weli waxaa weerar ku ah dagaalyahanada xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalkaasi yemen waxaana jira weerar argoosi ah oo iiraan ay ku hanjabtay dilkii hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniyah ay ugu argudayso oo bishii horeeta lagu dilay tehraan inkastoo israa'iil aysan sheegan mas-uuliyadda dilkaasi haddana waxaa si weyn loogu eedeeyey inay iyadu ka dambeysay 3 sarkaal oo sare oo iiraan ayaa sheegay in heshiiska xabajoojinta ah ee khaza uu noqon karo waxa keliya ee loogu hortegayo argoosiga dilka haniya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters qorshaha looga hadlayo dooxa ayaa ku bilowday hindise 3 weji ah oo uu daaha rogay madaxweynaha maraykanka joe biden 30 bishii may oo ku baaqaya xabajoojin 6 toddobaad ah in ciidamada israa'iil ay ka baxaan deegaanada dadku ay ku badan yihiin ee khaza in la isdhaafsado lahaystayaasha iyo maxaabiista gargaarka bini'aadminimo inuu kordho falastiiniintuna ay awoodaan inay ku noqdaan guryahooda kadibna xabajoojintu ay horseedo weji labaad oo xabajoojin ah oo daa'ima saraakiil ruusha ayaa waxaa arbacadii shalayto ay ku dhawaaqeen in ay daadgurayeen 20,000 oo qof oo dheeraad ah iyadoo ciidamada ukrain ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan gobolka Kursk
kusimaha guddoomiyaha gobolka alex simronof ayaa waxa uu ku sheegay abka fariimaha ee telegram in booliiska iyo mas-uuliyiinta kale ay isku dubaridi doonaan daadgureynta dadka ee degmada klushkof oo xuduud lala ukraine. ruushka ayaa daadguriyey ku dhowaada 200,000 oo qof tan iyo markii ukraine ay bilowday weerarkeeda dhanka xuduudaha 6 bishan August. taliyaha ciidamada Ukraine General Oleksandr Syrskyi ayaa waxa uu sheegay in ka badan 100 askari oo Ruushka la qabtay, waxaana madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in ugu dambeynta lagu bedelan doono maxaabiista dagaalka ee Ukraine. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo quusaysa caafimaadka guud ee dunida, waxaana uu ishaaciyey in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. digniintan caafimaad ee caalamiga ayaa qaramada midoobay waxaa la sheegay in ay soo saarayso markii labaad muddo 2 sano gudahooda, waxaana markan ay ka digtay in cudurkaasi uu ku fidayo dalalka deriska la Congo. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka ee adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay in jawaab caalami ah oo la iska kaashaday ay lama huraan u tahay joojinta fiditaanka cudurkani si markaasi loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. cudurka busbuska ayaa ku faafi karaya isu dhowaasho iyo istaabasho qofka xanuunka qaba la taabto, waxaana uu ku bilowdaa qandho kadibna waxa uu isu bedelaa nabro iyagoo ka soo baxa jirka oo dhan. ururka caafimaadka adduunka waxa uu sheegay in cudurkani oo ka soo bilowday dalkaasi Congo hadda uu ku faafayo dalalka deriska la iyo kuwa u dhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. warkeena dhegeystayaal waa dhagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. dowladda Britain ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso sababaha keenay in dalka ay ka dhacaan dibadbaxyo wata rabshado oo ay qabanqaabiyeen kooxaha xagjirka ah. ma jiraan dadyow dibadda ah ama dalal kaleeto oo ku lug leh rabshadahaasi. warbixin gaar ah oo arrintaas aynu ku eegino waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. dibadbaxyo wata rabshado oo noocan oo kala ahi Britain hal mar ayay ka dhaceen sanadkii 2011 waagaas nin booliis ah ayaa toogasho waxa uu ku dilay wiil madow. dowladda Britain ma ay filayn in rabshado noocan ah oo ay abaabuleen kooxaha xagjirka ay dhacaan. dadka muhaajiriinta ah gaar ahaan dadka muslimiinta ah iyaga laftooda ayaa u qaadan waayay, waxaanay ku noqotay mucjiso. rabshaduhu waxay ka dhaceen magaalooyinka muslimiintu ay ku badan tahay oo ay dabcan Soomaaliduna ku jirto. marka laga yimaado khasaaraha ka dhashay rabshadahan, arrinkan warwarka leh ayaa ah in dad cadaan ah oo Ingiriis ah ay qabaan cadho noocan oo kale ah, halka dadka qaar ay ku eedeeyeen dareen midabta koor oo aan xooganayn iyo warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha ay bulshadu ku kulanto. dadka qaar kale ayaa aaminsan in arrinkani ku qotomo dareen fog iyo kooxo badheeray. dadka dambe waxa ay sheegeen in ay dowladdu wajahayso caqabado waaweyn loona baahan yahay inay qalalaase noocan oo kale ah ka hortagto. maxaa haddaba ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee rabshado ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah ay ka dhacaan Britain? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain. cabdixaafid, waxyaabaha ugu waaweyn ee ka sababay rabshadaha ay ka dambeeyeen kooxaha xagjirka ah ee dhanka midig ee cunsuriyiinta ah waxaa la oran karaa waa been abuur iyo warar ku tirikuteena oo aan sugnayn oo la fidiyey kadib dil ka dhacay magaalada Stockport, taasoo wiil Afrikaan ah oo asalkiisii 10 jir ah uu dilay 3 gabdhood uu toori ku dilay. waxaa markiiba suuqa la geliyey wuxuu ahaa qaxooti muslim ah, kadibna waxaa la bartilmaameedsay goobaha ay dadka muslimiinta ah ay runtii sida masaajidoo kale iyo meelaha dadka laga tira badan yahay. arrimahaas waxaa kaloo sababay in baraha bulshada
aad iyo aad ay door weyn oga ciyaartay fidinta ajaanib naceebka iyo qolyaha cunsuriyiinta ah wararkoodii ay runtii ku fidinayeen inay arrimahaasi ku dagan. waxaa kaloo jirta in arrimaha qorshaha siyaasadda dalka ingiriiska ee arrimaha khuseeyo soo galootiga ah in ay aada uga biyadiidsanayeen dadka, laakiin arrinka kalifay waxay ahayd dilkii lagu masabiday dadka muslimiinta ah. rabshadihii ka dhacay magaalooyinka muslimiinta ku badan tahay gaar ahaan mandaqada England waxaa kale oo ay walaac ku abuureen jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool dalkan iyo guud ahaanba muhaajiriinta. Britain waxa ay ka mid tahay wadamada Yurub ee muslimiintu ay awoodda ku leedahay ilaa heer waxaana jira daayar badan oo muslimiin ah qaarkood waxa ay wacad ku mareen inay isdifaaci doonaan. London ma doonayso mar kale arrinku inuu faraha ka baxo. Saameyn ay rabshadahani ku yeesheen dhaqaalaha, ammaanka iyo guud ahaanba muuqaalka Britain oo ka mid ah wadamada kala duwanaanshaha Yurub lagu ixtiraamo. Ingiriisku wadamo badan oo caalamka ah ayuu ka soo taliyay nidaam gumaysi iyo waxa uu ugu yeeri jiray ilaaleyn, waana dal ajnabiga yaqaana. waxaa jiray warar lagu daabacay warbaahinta Britain bilowgii rabshadahan oo lagu sheegay in Ruushku ku lug lahaa weerarka been abuurka ah ee lagu baahiyay baraha bulshada ku kulanto. inkasta oo dib laga sheegay inay jireen dad Ruushka degan oo leh aalada loo yaqaan YouTube doonayeen inay helaan daawasho badan, laakiin aanay dowladda Ruushku si toos ah ugu lug lahayn wararka been abuurta ahaa ee lagu wadaagay baraha bulshada. laakiin dad ayaa aaminsan in aan gacan labaad ka maqnayn. waa kalmar kale Maxamed Xasan Dable. Cabdi Xaafid dareen ayaa jira dowladda UK ee qabto oo ah in faafintii wararkan kutirkuteenta ah iyo been abuurkii ka dhacay maxay ahayd meesha Stockport dilkii ka dhacay kiciyay rabshadahan in ay ka dambeeyeen gacmo shisheeye. laanta dambiyada qaran ee UK ayaa dabagal ku sameynaysa iyo baaritaan sida mataqaanaa loo fidiyay been abuurkan iyo looga faa'iideystay. waliba waxay inta badan tuhunsan yihiin in ay dowladda Iran iyo Russia ay ka dambeeyeen propagandaha sida RT iyo Sputnik horeyba looga bartay inay propagandooyin fara badan ka fidin jireen. taana waa xeelad dagaal weeye oo maxay ahaday inkastoo Ruushka naftiisu uu ku eeday Ingiriiska in propaganda fara badan ay ka faafiyaan. waxaa kaloo la arkayay ninkii hogaaminayay kooxaha xagjirka ah in uu maxay ahaday isku sawiray ciidanka Israel in uu hadallo laga hayo uu leeyahay maxay ahaday Britain waa inaan Hamas ka nadiifinaa, waxaan u dhimanayaa Israel, ciidamada Israel Defense Force ayaan ka barbar dagaalamaya. waxyaabahaas oo dhan waxaa la oran karaa si dadban ayaa mataqaanaa arrinkan looga faa'iideysanay. si kasta oo ay u suurto gashay in rabshado noocan ah ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah ee Britain, waxaa soo baxday inay jiraan kooxo soo xoogaysanaya kuna dhiiran kara in ay dhowr toddobaad ay geystaan khasaare muujiyaan muslim nacayb. waxa kale oo muuqata in ay dowladdu wajahayso walaac badan oo ay bulshada Britain ku nool qabto ama la soo dirsay, loona baahan yahay in aanay rabshado noocan oo kale ahi dhicin. Cabdi Xaafid Awal Ismaaciil, VOA, London. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaana soo jeedinaysaa Zahra Ciidle. kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga VOA ee toddobaadkan. magaalada Boorame ee gobolka Awdal iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi iyo magaalada ganacsiga ee Wajaale qaybta Somaliland waxa aad looga isticmaalaa lacagta birta ee dalka Itoobiya, waxaana ka dhaxeeya ganacsi xoogan oo iskaga gudba xuduudka. lacagtaasi birta Itoobiyana ay saldhig adag u tahay. markasta oo isbedel ku yimaado lacagtaasi Itoobiya waxa si weyn looga dareemaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Boorame. dhawaanahan waxaa la sheegayaa in qiimaha sarifka lacagta birta ahi uu hoos u dhacay. boqolka bir ee Itoobiya magaalada Boorame gudaheeda waxaa lagu sarrifaa 7,000 oo shilinka Somaliland, waana lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado. haddaba si aynu arrimahaasi wax uga ogaano isla markaana aynu ugu gondodegno maxay tahay saameynta taban ee ay ku yeelatay sarifka amaba qiimaha isbedelay ee lacagta Itoobiya, sidee ayay dadka reer Boorame ugu tiirsan yihiin lacagtaasi birta Itoobiya,
aan idinku wareejiyo wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo arrimahaasi ku falanqaynaya barnaamijkeena bandhiga v o a ee toddobaadkan. mahadsanid sahra. dhowaan waxaa hoos u dhac uu ku yimid sarifka qiimaha lacagta birta ee dalka Itoobiya, taas oo xidhiidh ganacsi iyo iska gudubka lacagtaasi ay ka dhaxayso magaalooyin ka mid ah Somaliland. meelaha ay saameynta ku yeelatay hoos u dhaca qiimaha lacagta Itoobiya ee birta loo yaqaan waxaa ka mid ah magaalooyinka Boorama, meelo kale oo gobolka Awdal ah iyo magaalada Wajaale ee dhanka Somaliland. maadaama suuqyada magaalooyinkaasi laga isticmaalo lacagtaasi birta ah ee dalka Itoobiya. suuqa xoolaha ee magaalada Boorama waa saylid qiimaha xoolaha kala duwan lagu kala iibsado lacagta birta Itoobiya. sida ay u saameysay ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi ka iibsatay iyo kuwa xoolaha keena. caasha daayirka waxaad ka mid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha ee ganacsiga u dhaxeeyo Itoobiya iyo Boorama ama Somaliland. bal faahfaahin naga sii hoos u dhaca ay birta ku keentay xoolihii lagu kala iibsanay gegadan xoolaha. xoolihii waxa weeye bir baan ku soo iibsanay, halkanna bir baan ku iibinaynaa. kolkaan reerkii iyo awlaaddii wax siinayno waa 7,000 waxa la noogu sarfaya, oo 700 weeye waxa la noogu sarfaya 100 riyaal. waxba ma goynayso, koob shaah kuma goynayso, 2 miro furna weeye waxa goynaysaa. waan ku baaba'nay laba neef la naga ibsaday 6,000 cashuuraan bixinayna waa 100 riyaal. waxba faa'iido ee damale. imika koob caana buu shubto wax la 100 riyaalkeen, koob yar waxa caana ka waran xaga faa'iido marka xogada ka faa'iido ma awlaadi hadaad 500 siiso qado uma noqonayso. maxaan hadii adigu ku qaday tiraahdo 100 faran 100 riyaal laga ma siinayo half basta dehay maxay kala faa'iido leedahay 100 riyaal ba qof yar u dhiib waxna furun soo ibsan 2 mir baa laga siinaya. hay faa'iido damale halka faa'iido kuma leh wuxuu laga soo iibinaya wax baad ku cunaysaa. maxamed xad ibraahim kale naanaystana cubeed baa dadku yaqaan magaalada. cubeedo waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada xoolaha, ganacsiga iskaga gudba Somaliland iyo Itoobiya. maxay saameyn idinku yeelatay hoos u dhaca qiimaha birta ee suuqan xoolaha ee magaalada Boorama? aad ka mid ahay dadka xoolaha keena. waxay lacagtaasi nagu qiimaheegu waxay noogu noqotay aad bay qiimaheegu hoos noogu dhacay markaanu ka soo iibinayna Itoobiya. Itoobiya baan laga siiyo lacagtu Itoobiya ahaan baa wax naga qaataa. markaanu halkan imaadnana dib baanu sarifnaa, hadaanu sarifnana sariflihii 7,000 bay naga siisanayaan. 7dii waxba way noo gaari waayeen, xaasaskii ayagay waxba way u gaari waayeen. lacagtii waabanu ka dhex baxnay, lacagtii hoos u sii socota. subax wanaagsan shaqaynayna qolkay halkan qiimihii nalagaga qaato dollar ahaan hoosun bay lacagtayadu u sii socotaa, waxba nooma kordho. dhibtaasaanu aad iyo aad hadaanu nahay. subax wanaagsan idil ahaantii meel kastoo aad nagala socotaan waa 3 August. wax isbedel ma ku yimaadeen sixirka xoolaha la kala siisanaya ee suuqa gudihiisa? neefka qiimihii la siisanayay kor ma u kacay mise intii la kala siisanayay markii hore unbaa la kala siisanaya? waxa weeye qiimuhu intii unbaa la siisanaya. hadduu qiimuhu noo kordho halkan ka kordho lacagtu kolkaa way soo noqon lahayd. qiimihii halkan kama korsana magaaladii Boorama keenayni. haddii qofka xoolaha keena sidaasoo kale uu doonayo inuu suuqii alaab iyo wax ka gato Itoobiyan birka, suuqa wax ma kaga gadanaya? waxa weeye halkan lacagta Itoobiyaanka kolkana la siiyo haddaanu suuqa la galo oo nidhaa alaabaad ku soo iibsataan dollar baanu kuugu dhufan, ama se 7,000 baanu kuugu dhufan 100 riyaal Itoobiyaanka oo Somaliland. subax wanaagsan idil ahaantii meel kastoo aad nagala socotaan waa 3 August 13 sanadku 2024 goorfeegtu waa 7dii. wararkan idin haynana waxaa ka mid ah Elon Musk oo bartiisa eegas kula sheekaystay Trump xilli uu ka hadlay waxyaalo kala duwan oo ganacsada xoolaha. sida ay ku sheegeen waraysiga ay siiyeen marar badan oo lacagtaasi hoos u dhac ku yimid iyo waqtigan qiimaha lacagtaasi ay dawladda Itoobiya hoos u dhigtay waxay keentay saameyn ku timid wax kala iibsiga suuqyadaasi. aniga Siyaad Cabdullaahi Dugsiye waxaan oo dadkii ka iibsan jiray xoolaha saylada Wajaale iyo sayladaha Boorama ereedan maxaa lagu kala iibsadaa mar bir baa lagu kala iibsadaa xoolaha. marka qofka dadka xaggan imika markan isbedelku dhacay waxay dadku aad uga markay xagga birta ka soo iibsadaan xaggan keena bir baa laga iibsanayaa. qofku kiyo dollar sax laga yaabaa intuu soo sarrifo bir uu kaga iibsado birta bir iyaga uu keeno. marka
markii hore waxa laga yaabaa inay wax kaga iibsan jireen suuqa oo waxyaabo badan ay u baahan yihiin ka iibsan jireen marka isbedelku dhace ee ay kor u kacdo birtii ay la yiraahdo intaasay maraysaa way qaataan lacagta deeyo ama qaarkood bir baa loogu diraa dhul ka shaqeeya ama xawaaladaha dhigaanbo xaggooda ay qiimo ku leedahay wax ku goynayso wax kaga iibsadaan